mas-uuliyiinta shirkadda xoogga korontada Lasko magaalada Laascaanood ayaa maanta xabsiga loo taxaabay kadib markii leerarka sharaaciyada habeennimadii xalay shirkadu demisay sabab la xiriira amnigooda kaasoo loo sheegay inay soo gaadheen fariimahan jabaada oo aan la garanayn cidda u soo dirtay iyadoo muddooyinkii u dambeysayna shirkadu ka holoneyd sidii u horumarin lahaayeen adeegooda isla markaana ay keeneen khubaro ajaanib ah kuwaas oo dabka ka dhalinaya qorraxda iyo dabaysha waxaana la sheegay in amarka xadhigooda ay bixiyeen maamulka gobolka Sool iyadoo la arkayay ciidamada booliska oo saaran gaadiidka shirkadaasi kuna amray inay dib u howlgeliyaan leerarka shirkadu demisay waxaana xabsiga dhexe magaalada Laascaanood hadda ku jira gudoomiyaha shirkadda xoogga korontada Lasko Cabdinaasir Abushaybe gudoomiye ku-xigeenka shirkadaasi Mubaarak Xaaji Faarax maarayaha shirkadda xoogga korontada Lasko Ahmed Siciid iyo sidoo kale qaar ka mid ah guddiga boorka shirkadaasi waxaana xadhiga mas'uuliyiinta shirkadda xoogga korontada Lasko wax ka weydiinay taliyaha qaybta booliska gobolka Sool isagoo noo xaqiijiyay inay xiran yihiin waxaan laga xaqiijinay inay xiran yihiin saacadan runtii way xiran yihiin saakastidii iyo barkii sagaalkii baan xirnay war xume meel dheer ku dhacayo marka war xume meel dheer ku dhacayo muu ahayn leerkii magaalada la baktiyay ma ahayn walaga yaabaa in dadku u qaateen ama meelaha qaar la gaarsiiyay security leerka ayay ahayd waxani bahalihii security leerkeena dib baa loo xiray waa dib baa loo xiray laakiin arrintaas baaritaan ahaan kulli waanu baaraynaa oo waxa ku kalifay arrintaas baaristu way noo socotaa oo waanu baaraynaa arrintaas waxa ku kalifay waanu heli doonaa guntooda waxa ku kalifay arrintaa gunteeda waanu heli doonaa hadii ay badin taliya adiga aad u mahadsan shirkadda Lasko hadii kaba soo qaadada ay sheegeen inay cabsi u xireen baalayaasha security leerka magaalada uusan maqnayn oo ay soo daayaan khasaaraha sheegeen dad ku dhac mas'uuliyadda ay qaadato dawladdu iyo shacabku iyo iskaashanaya xanan ilaahay ka rajeynaya wax khasaare ku dhicin inaan khasaare dhicin baan ilaahay ka rajeynaya dadweynaha ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood ayaa dareeno kala duwan ka bixiyay demista leerka sharaaciyada ee habeennimadii xalay la demiyay iyadoo ay magaaladuna mar qura isu bedeshay meel madow ah waxaana mar kale saaka lagu warhelay xadhiga mas'uuliyiinta shirkadda xoogga korontada Lasko kuwaas oo xabsiga loo taxaabay Cabdiraxmaan Cali Ducaale Home Cable TV Laascaanood.